warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee Somaliland. Dagaalkan ayaa ka dhacay ilaa 3 aag, waxaase dagaalka xooggiisu ka dhacay galbeedka magaalada Laascaanood. Dagaalka ayaa qarxay kadib markii maleeshiyaadka huwantu ay weerar ku qaadeen fadhiisimada ciidamada qaranka ee halkaasi ka dhow. ciidamada qaranka Somaliland oo heegan buuxa ku jiray ayaa la sheegay inay markiiba cagta mariyeen kooxaha nabadiidka ah, waxayna maleeshiyaadka ku khasbeen inay dib ugu yeecaan gudaha magaalada Laascaanood. waxaa la sheegay in kooxihii uu ciidanku qaranku baacsaday ay madaafiic ka soo tuureen gudaha magaalada Laascaanood, laakiin ciidanka qaranka ayaa kaga jawaabay hubka culus, taasi oo keentay inay burburaan guryihii ay nabadiidku ku dhuumanayeen. kooxaha huwanta oo ay caado iyo dhaqan u tahay in marka la jabiyo ay warbaahinta geliyaan warar aan sax ahayn ayaa sheegay in duqeymaha ciidamada qaranku ay ku dhaawacmaan ilaa 10 qof oo ka mid ah shaqaalaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood iyo 3 shaqaalaha hay'adda Bisha Casa. hase yeeshee warbaahinta ayaa ogaatay in dadka dagaalkaasi ku dhintay ka mid ah kuwa ilaalada madaxtooyada Puntland oo ka barbar dagaalamayay kooxaha maleeshiyaadka ah ee taageerada ka helaya kooxda Al-Shabaab. dagaalka oo sidoo kale ka dhacay deegaanada Dhabansaar iyo Maraaga oo kooxaha nabadiidka iyo khasaare ka soo gaadhay ayaa waxaa ka hadashay wasaaradda difaaca Jamhuuriyadda Somaliland. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Somaliland oo soo gaadhay xarunta warqabadka Arabsiya News ayaa lagu yidhi sidan: ciidanka Somaliland waxa ay la kulmeen weerar abaabulan oo kaga imanaya isbahaysi ay ku midaysan yihiin maleeshiyaadka Laascaanood, maamul goboleedka Puntland iyo kooxo argagixiso ah oo ka howlgala magaalada Laascaanood. weerarkan ayaa lala beegsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan Somaliland. si kastaba ahaatee, wasaaradda gaashaandhigga Somaliland waxay ku faraxsan tahay inay ka warbixiso in ciidanka Somaliland si hufan uga jawaabeen, islamarkaana ay ku guulaysteen inay difaacaan dhulkooda, islamarkaana ay qaadaan weerar rogaal celis ah. kama daali doono inaan dhulkayaga ka difaacno isbahaysigan fowdada iyo xasiloon darrada wada, ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Somaliland.